runtii horta cisbitaalkan iyo inka la yidhaahdo Gaboose in badan baa la sugayay hawlaheena midba mid bay ka dambaysaa maalinba kaa dambeeya anakii hore wuxuu dheeraanayaa waqtiga uu soo gaaray qalabkiisa iyo casrigiisa halku joogaa uu dheeraanaya cisbitaalada private-ka runtii aad iyo aad bay u korayaan intii imanka 10 sano ugu dambeeyay haddaan ka soo qaado aad bay runtii u korayaan waayo waxaa imanaya dadka maamulaya ayay ku xidhan tahay horumarinta ay geeyaan cisbitaalada cisbitaalka weyne Hargeysa waa garanaysaan taariikhdiisa cisbitaalkaasaynu lahayd meel kastoo joogto cisbitaalka Hargeysa la iman jiray dhakhaatiir wanaagsan dad wanaagsan baa kulli joogo shaqooyin aad baa loo qaban jiray anuu haddaan idhaahdo waabaan kale waxaan la odhan doono waagaa ma baanaan jirin quladoona taalo ka baqanaya haddii lixdankii baa halkaa intuu kaga dhacano gidaar meeliya soo geysanaya ayaa halkaa lagaga toray marka wax yar baan ahay oran maayo standard 2 iskuulka ayaa ku jira markaa dee cisbitaalka waa intigaamo ahaa hase ahaatee iminka cisbitaallada waxaan filayaa aada u hana qaaday markiiba horta waxaa kow ka ahaayeen cisbitaalka adna aadan oo runtii si fiican u shaqeeyey dariiqan iminka Gaboose bilaabayna hore uga sii socday oo educationkiina leh hospitalkiina la qaybtii waxbarashada qaybtii kana leh oo qof ku magacaabo qaarna waa kulliin qaarna waxa weeye waa wax shakhsi ah moogta waynu sii wadnay markaa gargaar baa ka soo yimid حسين مقع عيال كانوا حسين مين حسين كان نجح يا حسين رغم وانا اخترت هذا اللي قاعد يستاهل أنا حسين وكسر بحي أنا كأحسن كل ما يبتشري هذا الناس نسيب العيو هل كان يفوق هل كان يسلي Gaboose halkii reer ciidiga ahayd dawladda hoose dadka neeftu uga qaban jirtay intuu rarraftaba halkan uu maanta soo fadhiisay internet waxaan haddaba anigu maadaama meesha caafimaadka ahay maalin dhoweyto markii ay ka dhaceen dagaaladu ka dhaceen Tukaraq waxaan isugu nimi qolada ciidanka qaranka waxa la yidhi cisbitaaladii private-ka baa laga rabaa kaalmo وهذا قال لنا سيبنا كتير كنا هذا الموسيقى لكن وقت نقول من السلطات كستو برايف كو معدلة هيدا إنه قريب أو minimum 5% إنه سيعينك خارج وده بتعرف عينك خارج كلامه وهو كاسو أوهم عينك خارج إلا أنت اللي واي وقت على صوب هذا تكتاني استان ميليتري هذا تاعنا وناو عينك يبوشنا إنه هو مفهوم كقابل لها مو هو قابل الموسيقى مركايا هذا إن شاء الله إلى هاي مرة بينه وكأنه هذا يستلزم أن تحسين الدنيا الجنوب. واحد رأسنا قريب كقاطع international يعني hospital وسبب كانوا يريدوا على مارك ambassador كنيسة وسنة رنتي لقى رئيسا أخاطر في عنا يشوفته سلام كان hospital كاسنا وثب يسوق فوق كردي هاي charity هالك كوين school هالك جيالا وهلكا meelaha laga fangariyaa uu ka mid yahay sanadood agoomo badan baa inta ku jira marka agoontii iyo xanuunkii labadaba qaabilaysan maxamed cabdi Gaboose maadaama uu maanta noo furay anoo horta kelmadaan roonayna horeysa waxaan bariyo kelmadda labaad waa duco Allah ha barakeeyo isagana ha barakeeyo innagana ha inoo barakeeyo dhakhaatiirtu dhan waxaan lagu yiri ducaynayaa marka ayla halkan intii yar halka joogay dawladda hoosaanteeda halkan ku jiro halkan reer ku hayo islaamiyad gaaro lacagta ururiyo kasoo lacagtii siyaasadda ku bixin jiray haddana taas siyaasadda ku dheeyaa waxay ka soo baxsan waa beeshin bay ka soo baxsay meel kale weeyeen maanta markaa la soo gaaray loo baahay beeshin wax lagu yeerayo oo wax loo dhaafo oo maaragtay sixradii laga dhimo oo la isku gurgaray ka kare kare iyo ka aan kare kare in bixin la sameeyo ka kare kare in lagu yeero kana kare in laga dhaafo ka lagu karo ساي هوشي أو سعطوي هذا نك مسكين كلاد Gaboose عسبالك سمبتي كرو العقل ما يستو مركب عسبتان قول باي وين قف ولا أكسس لي إنه جيناته أو كيل عاود كرو أو سوينا كل يسوع سمايو أيضا تعبلت مسكين كأهو سمايو ولا يمكن مسكين كأهو كايس كحاضر يوم أو هكذا أنا قلتي عسبالة أنا كان ما دو أنا قلت ده كان كليه فيه أي غير كذا كان فيه بحني فوق Gaboose كان سكت شنو كيلو قال لنا وأنا العقل إحنا نجت يتوه سكلا
marka laakiin qofkii miskiinka intaa ma odhan karo waxa weeye in qayb loo sameeyo oo qofkaan keri karin isna keerkiisa si fiican loo eego taa ayaad furayso runtii jaamacaddana waxaan kugula talinayaa inkastoo dhakhaatiirtii qaar jooga qaarna aanay joogin maanta muranka ugu fara badan ee dalkeeda ka taagan waxa weeye businesska adigu waxaan dadka aan dhakhaatiirta ahayn baa waliba sheegaya waxay ku odhanayaan businesska ay bilaabeen waa caafimaad iyo waxbarasho nin baa wuxuu niman la galay shirkad meel clinicana annagana NHBC ahaan waxaa noo taala ninka specialisti inaanu clinic ka shaqayn karin amba inu cusbitaal ka shaqeeyaa amba inu jaamacad wax ka dhigo laakiin nin furtay afriidiyeeda dhakhaatiirta jaamacadda ka soo baxda forensic ka ag furtay oo specialisti sharciga uma ogola dabeetana nimankii baashaa watay ayuu ninkii mid yimid waxaan ku maxaad ku fashay waxaan barushaag maha waa laga macaashaa baa layidhi kelmaddaasoo keliya dadka wax u tarayaa iyo xanuunadan ka ilaalinayaa iyo waxaas maki waa laga macaashaa buuli haddaba ka macaashi maysa marka waa noo furi kartid dee maxaad ka macaashi mama ogolin marka waxaad arkaysaa aniga axmed xaasho halkaa inala fadhiya qaarba waxay dhahdeen axmed xaasho wuxuu noo diidayaa cisbitaalkii reerka oo suldaantu TV soo bartay weliba aanu saaxiib nahay haddaba intaan ilaa la war reerka iga bilow uga baydh lahay inuu intii fadhiisay inuu cisbitaalka wuxuu cadaadinaya waa xaafadaydu diidaya taasina waa tiidisheeyo shaqadii baa naga gashay xaafadii marka dhakhtarka la qabsadaa khaayinka ah ee dhakhtarka wanaagsan hayn reerkiibuu dabada gelinaya anaa lay jeedaa buu odhanaya dabeetana imka oga xasan ismaaciil wasiirka caafimaadka cabashooyin badan baa wada odhanaya xasan waxaasuu soo wataa inuu haddana uu samaynin wuu soo wataa ayay qaarkiisi ashkatoonayaan oo aniga noola imanayaan iskuula tegaya marka waxaa daba caafimaadka wuxuu noqday meesha sensitive-ka uu noqday waxaanu noqday meesha commercial-ka markaan isku soo ururo commercial-kaas daba si aan uga saarna waxa weeye waa in dadka caafimaadka u ehelgelihin ay caafimaad gacanta ku qabtaan oo laga saara ninkan ganacsada cusbitaalka furanaya nimaan aqoon oo lahayn baa cusbitaal furanaya dee marka haddaa ninku lacagtii waayo dee waa la istinaya markaan waxaan leeyahay dhakhaatiirtii naasiye hadda awood ninkay gaadho waa inaa idinku ilaalisaan fiilkana ninka iskale 300 oo dhakhtar oo ajnabi baa jooga dalka oo aan gebigood haddii laysku wadaro 20 qof loo diiwaangashan yihiin waana 300 mid baa ka soo qabtay sheekh madaragteeda aniga immigration waan soo xidhnay khamiis bay ahayd ninkii odayga aan ugu jeclaa Somaliland ayay yihiin sii daaway hortaada inaan shaqada ka tagay buu caawina xidhnaa daadilita kaani ma anigu soo xidhan keenay imika sii daay karaa message ma uu yeelay ninkii meesha istaa ku waxa dad tagay daan salligan keenay soo dad tagay laakiin ma sii deeni sababtana ay nooca maxkamadda dib u wada marka taana way leedahay oo in la isaga soo oohiyo oo nimaan shahaadaysan weliba dadka waa jiniba dadka loo hadlay maani Somaliland qof ku hadlay waa jiniba oo walaal niyu leeyahay lama taaban kariyo leeyahay wadna jinibi agsidada hadiya goor kaca wuxuu ilaahay naga noo galay dad iimaan la weynoo diin uu dhimanaya soo qalliinka dhaqtar uu shaqeynaya ma awoodeeyo dhahdo hadilay ma negligence dhakhtar buu dhintay ma wax kale oo dhintay ma awood saacadiisa baa dhamaatay ma sha Allah alxamdulillah rabbil alamin yada qodar niyo u dhadmaxba laakiin hadda wax fiican in la sugaado oo dhakhtarka qofka gacanta ku hayay muxuu ku dhintay la sugaado waxa maalmo dhow dhacday qoys baa laga dhaxin qof la qalay baa laba qoys laga dhaxin 2-3 days after markuu joogay meeshii infection bay dhacday dhacaanka uu joogsan waayay ninkii inaan ka abtago hab aniga yimid waxaan ku leeyahay ma ashkatoon oo muddo ma noqon laakiin qofka mudciga waa caawina soo ashkatoon xeerlaanta anaga xeerlaanta soo weydiiso dilutan saacan ka dhacay maxaa la sameeyay dib ugu soo هذا هو القناة وساعد سير كمانتين الحمد لله رب العالمين إيمان كيسات خيمسة واحد مش كلام لكن هذا نوع ما أنت أقول من اللغة مركا واحد أنا أقول له وإنه والله نسوق عليه شام علىها عافماتك يشام علىها حبر الشذا يسقول له حبر الشذا أنت والله نسوق تدخلني والله في سهادينية وحلمك في سهادينية استحان جوال جوال مركا الله قادر لقى في السجن دريجة
jaamacadda waxa geli jiray waxa loo secondary waxa loo jiray iskuulada soo galsan ABC lagu galo jaamacaddana sidaas loo geli jiray inankii iida keenay ama dhiida keenay ayaa wuxuu la fadhiisanayaa kii eeda keenay secondary ka soo baxay oo xaq u lahayn waayo midda kale waxay noqotay ardayda markii jaamacadda soo baxaan iskuulada secondary-ga ahaa dee suuqa joogi maayaan hargeysa iyo camuud iyo hargeysa iyo camuud iyo burca iyo markay golis iyo markay wax qaataan xaabkii soo haray waxa u soo haraya dee intii wasisaba soo haraysa jaamacad dhakhtar ku bilowdayna ma jirto believe me jaamacad intay furatay tii dhakhtar baan fureen dhakhtar baan noqotay medical university oo furay ma jirto wuxuu kusoo bilaabaa ICT accountant wax caynkaas markuu soo bilaabo uu sarkay inuu istaagay ayuu oranaya medicine baan furaya markaasuu medicine suuqa ka raadsanaya marka waxaan idin soo gabagabaynayaa dhakhaatiirtiina hamada haya in ay meel furto oo investment caynkana ay gelisaan inta aanay investmentka gelin ha soo saarto dadka investment sameynaya inkastoo aanu saaxiibkay liiska nimanka weli ii keenin haddana laakiin waxaan ku yaqaacay si inoogu sheekeeyey baan ku qacay imanka waxaan is leeyahay malaha waa ka siiyey kartaa laakiin dhismaha iyo shuqulka oo dhan waan ka wada soconno si fiican baan wada socon laakiin dhakhaatiirta waan had iyo goor waan kula taliya waxaan dhahaa intaad odhan lahayd aan koran dhakhtarkan shahaadiisa miste celis oo kharash kaa galay waxa fiican inaad marka hore keento tiraa kaamalkaasi naga soconaya wixii dambana tala dambana saasay isodhanay isugu tegaynaa waa ninka dhakhtarka dabadda ka keenaysaa kharash badan baa kugu fadhiya laakiin hadda tiraa waraaqahaaga soo dir waa bilaa kharash waraaqa marka soo dirtaa la isleegayaa haddaynu isla garanin dabeetana waa u yeedhay haddii kale la iska bedel waayo waxa weeye dee mujtamaceena ayaynu aadna markaa maxamedna waxaan aad iyo aad ugu guwaabinayaa dhakhaatiirta uu keenay inuu sida ugu dhaqsaha badan le u wada diiwaangeliyo sharcigooda una sameeyo si aynu dee u aamina haddii kale qof bilaa sharci dee nooma shaqayn karo waxaan maxaad markaad halkan qalaysay yaa horta liisan ku siiye fasax ayaa ku siiyey marka haddaanu fasaxba haysan inuu beeshigeedii taabto xaqmale laakiin waxaan leenahay maanta maadaama meherada yaro wanaagsan cusub oo quruxda badan isugu nimid intaana way arfays ahaan inuu ku staro maxamed laqsuu fuliyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على رسول الله waxaa maanta runtii farxad weyn oo ah inaynu xafladan nimaadno oo la wadaagno bahda reer Haldoor furitaanka isbitaalka Haldoor runtii aad baynu soo dhaweynaynaa waa arrin farxad inoo ah waxaanaynu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa بروفيسور محمد عبد القبوس ولا دكتور بعد المتقنة لكن هو بروفيسور جامعة الصومالية وهو هذا دكاترة كنت قيمها بدن معلمين نوعها صوص ساري دكاترة ودك جوت مرتب أنا وقت كيسي ما أها أوكيليا كموه كي يستقون اللي جالسي لكن دكاترة وسوق صوص ساري أيها إلا إمكا وحبرشة قيمك مركا يستقى إياه تيم كيسي إياه إسبتال كاردور با waxaan leenahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waan idin hambalyeynaa waxaa kaloo salaamayaa marti sharafta faraha badan ee halkan joogta wuxuu inoo furay cisbitaal runtii ah heerarkii ugu sarreeyay cisbitaal muddo dheer hiigsanay cisbitaallada runtii maanta dadkeenu waxyaabo yaroo sahla bay u dhimanayeen haddii maanta uu shil dhaco uu madaxa dhaawac yar ka gaadho meel dhiig lagaga sii daayo hadduu maskaxda kaga furfurdhay jira maanta wuxuu inoo sameynayay qaybtaa dhammaan waxa la wixii dhibaatee ku yimaada maskaxda ama qaybtaa neurolka waxa kaloo inoo sameynaya qaybtii wadnaha waxa kaloo inoo sameeyey qaybta loo yaqaano intensive care unitka qaybahan xaalad degdeg ah hadday ku dhacdo seer waxaa loo maamulaya marka waxaan leenahay waa guud u soo hoyatay bahda caafimaadka waxay u soo hoyatay wasaaradda caafimaadka waxay u soo hoyatay qaranka waxay u soo hoyatay mandaqadan aynu ku noolahay iyo geeyga Soomaaliyeed ba marka waa farxadda runtii waa loo qaybsanaynaa waa in dhakhtarka runtii aad iyo aad baynu kalgacayl badan u haynaa waana ku ixtiraamaynaa aad iyo aad dhakhtarku insha Allah shaqada weyneed qabatay ilaahay nagu guulay annagu dhakhaatiir ahaan xidhiidho badan waxaanu ka tirsannahay ururo fara badan oo caalamka ah oo ay ka mid yihiin qolada Federation of Islamic Medical Associations waxay isugu jiraan ilaa 50,000 oo dhakhtar baa ku jira waxaanu ka qayb qaadan doonaa insha Allah wax alla wixii dhakhtarka ka dhiman
ama wixii gaabisa loo baahayay la buuxiyo xidhiidhadaasi waynu ka faa'iidaynaynaa waxaanu ku jiraa مثل الرد كتر ماليزيا قار تركيا كتر سان أردن وضبطة عالم الإسلام إلا يا مريكا تاسنا ورنتي فرصة كلهم وقف فايدين دونه وحن كسوق بجوين يا أقدر بروح ورنتي برهور يم إم بكوين نوي هاي رنتي وح أستان قاتلتو إكسرش وحوي ومنارد وتاجن بهذا عافماتك وحلا أقدر شقور إكسبات قبطي مسؤوليتي كنا سوق قبطنا شقور إكسر أول طابن كرو أيه هاي waxaan rajaynayaa insha allahu habigaaga aadka u sarreeya inaynu ka bidha keenno inagoo wada jirana aadna wada wanaagsantahi wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu